مسجد كيالا حافظ بون ديره صونها ليرادو دلجر كدهصون مسجد كان إلهي قروقيسي وحال آساسي كن سقال بقول قنطن إيا أفرتي أيا لآساسي ماشي لديه جري قبك الشيخ حسان عد الشيخين مرحوم كهاي الله نحريسي عالمك بنادر وصومالي ودن أي وضا تقانو geedkii gobka ahay oo kitaabka ku akhri jiray intaan masjid oo sanjirin oo ajilada waaweyn oo culimada Soomaaliyeed ay ka soo aflaxday ka soo baxday ayaa masjidkan ku tilmaaman yahay masjidka gobka ayaa la yiraahdaa Sheekh Daahir Sheekh Umar Sheekh Xasan Macallim ayaa masjidka kan aasay masjidkan waxa uu ku yaalaa dhul cariiri oo ku yaala waxa Ilaahay soo bixiyay booska ku xiga ayaa waxa laga helay guri beec ayaa laga helay gurigaas ayaa marka dadkii jamaacadii masjidka joogtay oo ahlu khayrka ahay maadaama cariiri badan masjidka oo ku jira inay gurigaas la iibiyo oo dadka gadanaya gurigaas laga iibiyo masjidkana lagu daro intaas ayaa qorshaheedu yahay waxaan ku baaqaynaa hadaan nahay culimada Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir in masjidkaas loo gurmado waxaan marka ka codsanaynaa walaalaheena Soomaaliyeed ina maqlaya oo ina daawanaya oo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ku sugan in ay jeebabkooda iyo qalbigooda iyo akoonadooda ay u furaan gurigan Ilaahay subhanahu wa ta'ala booskaas waxa lagu qiimeeyay ilaa 75,000 oo dollar ayaa booska lagu qiimeeyay marka masaajidka dhismihiisa inta aanan u guda gelin waxaa laga maarmaana horta marka ugu horeysay tilaabta ugu horeysa inaan iibino booskaas oo masaajidka iyo guriga Ilaahay aan u iibino si loogu waasiciyo loogu ballaariyo